رئيس الوزراء حكومة فدرالك Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta xafiiskiisa magaalada Muqdisho waxa uu ku qaabilay safiirka dowladda Djibouti u jooga dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho Ambassador Aadan Xasan Aadan. Haddaba dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay qayb ka ahayd dhexdhexaadintii wadamada Djibouti iyo Eritrea kadib xuduudaha oo dhibaatooyin muddo aad u fog ay ka dhaxeeyeen inkastoo hadda heshiisyada laga sameynayo arintaasi ay meel hagaagsan ay marayaan. Dhinaca kale horaantii bishii Agoosto ee sanadkan 2018 ay ahayd markii war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska safaaradda Djibouti ee magaalada Muqdisho lagu sheegay in ay aad uga caroodeen hadal uu madaxweynaha Soomaaliya uu ka jeediyay magaalada Asmara kaasoo ahaa in Eritrea laga qaado cunaqabateyntii saarneytan iyo sanadkii 2009. رئيس الوزراء حكومة فدرالك Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda Djibouti ee Soomaaliya Ambassador Aadan Xasan Aadan. رئيس الوزراء حكومة Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo danjire Aadan Xasan Aadan ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada wadan ee walaalaha ah ka faa'iideysashada fursadaha waaweyn ee gobolka Geeska Afrika, iskaashiga dhaqaalaha, ganacsiga iyo amniga. رئيس الوزراء Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa uga mahadceliyay shacabka iyo madaxda dowladda Djibouti sidii ay u garab istaageen oo ay uga qayb qaateen dib u dhiska hay'adaha dowladeed ee dalka Soomaaliya xilligii adduunyada inteeda kale ay u arkaysay in Soomaaliya aysan lahayn rajo kale oo dowladnimo. danjire Aadan Xasan Aadan ayaa sheegay in shacabka iyo dowladda wadanka Djibouti ay waajib ku tahay isgarab istaaga iyo taageerada shacabka Soomaaliyeed isagoo soo dhaweeyay in Djibouti ay tahay Soomaaliya sidoo kalena Soomaaliya ay tahay Djibouti. labada dowladood iyo labada shacab ee Soomaaliya iyo Djibouti ayaa la xiriir soo jireen ah oo ku saleysan walaaltinimo, isqadarin iyo waliba isgarab istaag. balse horaantii bishii Agoosto ee sanadkan dowladda wadanka Djibouti ayaa si caro leh uga jawaabtay codsi uu madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka jeediyay magaalada Asmara kaas oo ahaa in Eritrea laga qaado cunaqabateyntii saarneytan iyo sanadkii 2009. hadalkaas oo ahaa qoraal ay soo saartay safaaradda wadanka Djibouti ee Muqdisho kuna qornaa luqadda Ingiriisiga ayay dowladda Djibouti waxay ku sheegtay in Soomaaliya ay xaq u leedahay in ay xiriir diblomaasiyadeed ay la yeelato wadanka Eritrea laakiinse wax la ogolaan karo ma ahan in walaalaheena Soomaaliya ay taageeraan Eritrea oo ku jirta qayb dhulkeena ka mid ah walina beenaynaysa inay haysato maxaabiis reer Djibouti ayaa lagu yiri qoraalka. waxay qoraalka ay ku sheegeen Djibouti inay fiicnaan lahayd in madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hadalkiisa uu ku xuso dhibaatada xuduudeed ee u dhaxaysa labada dowladood oo wadankana uu xal nabadeed u raadiyay khilaafkaasi. Djibouti dhib weyn ayaa ka soo gaaray waxayna ku weeday rag iyo dumar geesiyaal ah dagaalkii dhexmaray Djibouti iyo Eritrea ayaa lagu yiri qoraalka. waxay intaas ku dareen inay si dhab ah u qaadanayaan taageerada ay Soomaaliya ay u muujisay wadanka Eritrea. war saxaafadeedkii ka soo baxay safaaradda Djibouti ee magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay hadal adag oo ah in dowladda Djibouti aysan u dulqaadan doonin wada hadalladaasi naxariis la'aanta ah ayadoo raggeedii iyo dumarkeedii wali ay ku sugan yihiin wadanka Soomaaliya difaacayaan amniga iyo deganaanshaha dalka Soomaaliya.